odayaasha dhaqanka ee Muqdisho oo maanta warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya aan loo dul qaadan karin xirnaashaha jidadka Muqdisho oo caqabad ku ah nolosha dadka sida ay yiraahdeen. Odayaasha oo warbaahinta la hadlay waxa kale oo ay sheegeen in meel la maro aan la helin umulaha aan la geyn karin isbitaalada sida ay yiraahdeen. waxa kale oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqeen iyo laamaha ammaankaba inay ka qayb qaadato si kasta oo nolosha dadka Muqdisho lagu samata bixin karo inta lagu guda jiro xilligan jidadku ay xiran yihiin. odayaasha dhaqanku inta aysan mid u hadlin ka hor waxa ay akhriyeen war-saxaafadeed ay ku mideysan yihiin oo ay ku sheegeen in diyaar ay u yihiinba in gobolka Banaadir uu yeesho xuquuq matalaad siyaasadeed ah oo loo bixiyo Banaadir State isla markaana ka gudi ahaan hadda ay diyaar u yihiin. war-saxaafadeedka waxa akhriyay mid kamid ah ka qaybgalayaasha kulankan. shirka soo qaybgal maamul u sameynta Banaadir State anagoo ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada culimada diinka dhalinyarada haweenka ee gobolka Banaadir waxaa noo suurta gashay in aan isugu wacno shir loo dhan yahay waxaana sababay in maanta la isugu yimaado shirkan sababteedu ay tahay magaaladii oo loo kala qaybshay laba jid wadnaha kan waqooyi noord iyo kan koonfur south isu socodkii oo la xadiday isbitaaladii magaalada oo dhan oo ay ku yaalaan koonfurta jidka wadnaha dumarkii oo jidka ku umulooda gurmadka degdega oo la mamnuucay ciidamo aan tababar lahayn oo jidadka taagan oo lagu amray in ay qof kasta ku yiraahdaan kala wareeg waana astaan muujinaysa keligii talinimo dictatoriyad ayadoo loo maraayo 2019 in xilligan keligii talisnimo lagu fikiro magaalada Muqdisho waxay sidaan tahay 3 bilood intaan ka badan sidaan looguma sii fiirsan karo gumaysiga uu shacabku ku jiro ku takrifal amar iyo shacab maxaabiis looga dhigay magaaladoodii anagoo ah golaha badbaadinta gobolka Banaadir waxaan go'aansanay in aan u istaagno shacabka Muqdisho oo aan u dhisno maamul goboleed loo yaqaano Banaadir State taasoo dastuurka inoo ogolaanayo maadaama aan anagu nahay shacabka oo waxaan go'aansano oo aan raboono anagoo u dhan ay cidna na hor istaagi karin haddii aan ogolaanayno go'doonka 3 bilood hadda waxaan ogolaan doonaa anagoo naga go'an maamul laga macbahay Banaadir State wabillahi tawfiiq. qaar kamid ah odayaasha ayaa la hadlay warbaahinta oo ka hadlaya caqabadaha guud ee Muqdisho ka jira iyo dawladnimada dhibka ay ka tirsanayaan sida ay qabaan. xiiray barre waxaan ahaa nin reer Muqdisho ku dhashay ku koray caana ka ah waxaana qabsaday wax aan waligay arag ingiriisan ku soo gaaray talyaaniyan joogay dawladii aadan cabdullah joogay waxaan joogay dawladii ninka la yiraahdo cabdirashiid waxaan joogay kacaankii midda aan hadda nahayda waligay ma aanan arag waxaan ka codsaa ninka madaxda ka ah meesha waa madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhibka uu nagu sameeyay kolla ilmaha asaga soo dirtay kala wareeg asaga soo dirtay iyo backasi iyo wixii lamida waxaan ka codsaynaa inuu culayskaas naga qaado gurigayga waa ka soo lugeeyay waxaan meeshaan u imid aan joogo oonan haatan magaceeda idin sheegayn in nala ka qaado dhibka haddii aaba iska quusa aniga ka quustayo birina waa lagu duuga dawladda waa ka quusanay haddayna iska quusan laakiin iyadu hore u qamqaminaynayo iskama quusan laakiin ugu waa ka quusan waana duugayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhowr kulan oo kuwan la mid ah ayaa Muqdisho lagu qabtay oo odayaashana ay kaga cabanayeen xirnaashaha jidadka Muqdisho iyo sida ay ciriiri u sii galayso nolosha dadka ku nool xamar waxaana ay baaqoodii hore iyo mid kanba ku dalbanayeen in dawladda federaalku ay dib u eegis ku sameyso qaabka jidadka loo xiray iyo wixii la mid ah. Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho.